السلام عليكم وسلامتين دمانتين كسو دواada mar kale cashirkii noo socday ee ku saabsanaa sida loo dhiso web server qaybtan waa qaybta saddexaad waqtiga iga dhamaaday qaybta labaad laakiin waxa isdhahayay san runtii ka badan ii sheeg 15 daqiiqo marka qaybta saddexaad way iska gaabnaan doontaa sababtoo ah hawsha noo taalo waa hawl iskayr waxa weeyun tijaabada Apache web server iyo website-kii inay la geli karo marka serverkan Ubuntu server badanaa wuxuu ku yimaadaa ii sheeg web page yar oo ku sheegayo inuu serverkii dhismay oo uu jiro laakiin marka website dhisaysid waxa bedelaysaa index filekaas waa arki doonaa maxaa la dhihi jiray markaasna waxaa meesha dhan install garaynaysaa folder ay ku jiraan faylashii website-ka weyn oo aad dhigaysay meesha midaal haday tahay website sawirro iyo videoyaal iyo howlahaas oo dhan wadato waxaas dhan waa kala habeynaysaa oo file systemka waa inaad bedbedeshid iyo directory-ga iyo meeshay kaga jirto marka waxaalaas baa fiirinaynaa marka ugu horeysa waxaan ku bilaabaynaa horta inaan galno web serverkii waa kana username-ki aan dooranay wuxuu ahaa web demo okay password-kana wuxuu ahaa web demo 321 okay marka waa gal marka runtii marka meeshaan imaado badanaa maxaa la dhihi jiray ma jecli inaan ku shaqeeyo this window sababtoo waa console waana ii sheeg way mouse-ka way ka xiranaya oo mouse-ka runtii ma heli kartid ii sheeg space-kana wuu yar yahay oo full screen ma isticmaali kartid sababtoo ah waa serverkii meeshii laga gelayo waay laakiin waxaan u soo galaa marka ugu horeysa leh in aan soo helo IP address-ka uu network-ga ka qaatay sababtoo waa DHCP markuu dhismayo IP address dhan ma siin hadaa xasuusataan marka si aad u soo hesho IP address-kaas waxaa leedahay if config waana kana IP address-ka uu qaatay wakaasa waxa waaye 172.16.240.126 intaasun baa u baahan runtii markaas ka dambe waxaa doonanayaa application la yiraahdo PuTTY oo free iska ah waa soo dejisanaysaa waa kana Windows 64-bit marka application-kaas furaysaa iska xir marka waa kan marka taa xasuusit waa idin sheegay SSH in la isticmaali doono TCP port 22 IP address-ka marka waxa waaye 172.16.240 and then 126 boom marka wuxuu leeyahay ma aqbalaysaa servers host key waxaan waxa waaye serverka ay dhahayo host key-gayga waa kana PuTTY marka wuxuu leeyahay ma aaminaysaa serverkan ma ku kalsoon tahay inuu yahay kii aad raadinaysay soo ma jeedid meeshan if you trust this host hit yes hadaa aaminsan serverkan oo kii aad rabtay inaad geshid uu yahay haadhe marka waan ogahay inuu asaga yahay marka yes baan leeyahay isuga aweeneeyo meeshan xuruufta appearance change and then waxaa ka dhigayaa 14 point apply ka hadda waxay la tiina arki kartaan marka username-ka wuxuu ahaa web demo password-kana wuxuu ahaa web demo 321 waka marka waa ku dhex jiraa marka meeshaan aan ka jeclay inaan ku shaqeeyo sababtoo ah inta waxaa haysta full screen waa weyneyn karaa ii sheeg highlighting baa ku samayn karaayo mouse-kii weli waa haystaa marka waxa ugu horeeya waxaa waaye inaan fiirino horta webkii meesha uu ku install garay marka wuxuu geliyaa web fileska directory la yiraahdo cd linux-ka marka isticmaalay cd waxa waaye change directory
var www html waka halkaasii ku jirtaa website-ka marka haddaad tiraahdo ls-lrt wuu ku sheegayaa meeshan waxa ku nool hal file halkaas file waxa la yiraahdaa index fileka waxa waaye markii website la codsado qofka hadduu dhaho www.hiran.com hadduu dhaho meesha ay ka soo degayaan waa filekan landing page meesha ay ku soo dhacayaan marka ugu horeyso oo browserka uu ka soo caga dhiganayo waa meesha markaas filekan gudihiisa marka waxa ka helay configurationski iyo wixii marka hadda haddaan dhaho if config oo IP address-kan aan qaato oo aan geliyo browserkan meeshas baa ka kordhaca wakaasa wuxuu yiri Apache 2 Ubuntu default page waa ka soo kordhacday yiri waka this is the default welcome page yes to test the correct operation of the Apache server after installation waka installation ka dambe sida lagu test gareeyo waa kana yiri marka website dhisaysid file aad adiga leedahay qoranay dadka badankood index fileka waxay u isticmaalaan inuu faylal kale u sii diro qofka waa map markuu qofka index file ka soo kordhaco ama javascript ama php luqad kale ma ah kan hadda waa html ma ogtahay luqad kala intee qorshaha la wareegto ku sheegayso waxyaalaha aad ka gaari kartid meeshaas marka waa kana fileka index fileka waa ka soo kordhacnay haddii aad rabtid inaa index fileka bedbedeshid waxaa isticmaalaysaa maxaa la dhihi jiray ishaga vi editor baa isticmaalaysaa marka waxaa leedahay horta waa inaa isu bedeshid root inaa isu bedeshid waa because ma rabtid inaa wax badan bedbedeshid adigoona idan badan haysan hadda userkan web demo idan xoog lama haysto laakiin root inaa isu bedesho waa marka sida root lagu noqdo waxa waaye sudo switch user dadka qaarkood waxay dhahaan sudo super user laakiin sida correctiga waxa waaye sudo switch user markaasne web demo 321 waka marka hadda fiiri markii hore web deman ahaa hadda rootana soo ma jeedid hadda wax kasta bedbedeli karaa wax kasta tirtiri karaa waa runtii rootka waa user awood weyn oo idama badan haysto ma garatay waana waxa ku dhahayay passwordkii aan siinaynin marka hore wuxuu muhiim u yahay waxaas because passwordkaas hadduu qof kale gacanta u galo website-ka dhan wuu jajabin karaa ama macnaha wuu tirtiri karaa ma aha dhismo la jajabinaye okay marka vi index marka index fileka sidaan uu weegyahay waa kana wax kasto waka marka inta kore waxaan dhan waa configurationka xuruufta colorkooda iyo waxyaalahaas waxa maamulayo waa laakiin hadalka meeshuu ku qoran yahay waa kana waa kan soo ma jeedid this is the default welcome page to test the correct operation wixii aan akhrinay marka haddaad rabtid waxaas inaad bedeshid marka vi editor ku dhex jirta haddaad rabtid inaad waxba bedeshid waxaa taabanaysaa I on your keyboard fiirso waxa isbedeli doonaya I markaa taabto fiirso hadda waxba kuma qori kari waka insert uu isu bedelo automatically insert so actually maaha inaan save gareeyo marka okay marka ay baa taabanaysaa insert buu bedelayaa markaas insertkaas markaa heshid markaas waxa doonto waa bedeli kartaa marka waxaa tirtireynaa sentencekan kore markaasna waxaa ku bedelaynaa hadal yar oo aan anaga fiirino marka waa kaasa welcome to demo web or web demo
ama ku soo dhawaaw markaas marka si aad u save garaysid waxaad taabanaysaa escape and then labada dhibcood oo iskor saaran markaasna x and boom marka hadda wuu save gareeyay hadda marka inta website-kan ku noqotid ay try refresh okay welcome to demo web or demo web ama ku soo dhawaaw aad iyo aad baa u mahadsantiin inaad fiirsateen I hope inaad wax fiican ka faa'iideysateen السلام عليكم ورحمة الله